ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما ديران دون إن شاء الله وحروحا جعل سيئنا كهطل شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. نبي شمائل كيسة صفات كيسة عليه الصلاة والسلام إنا وحكا ركنه تا وحي نقول بحنيسة نقول حنباريسة إنا جعلان عليه الصلاة والسلام. tilmaantiisa xataa saxaabta haddii la weydiiyo nabiga noo sifeeya quruxdiisa jamaalkiisa nooga warama haddii la yidhaahdo waxay dhihi jireen ma sifeen karno liannanii lam akun amla caynaya min ru'yatihi sala allahu alayhi wasalam, sida camr bn alcaas oo kale uu leeyahay. marka nabi yuusuf calayhi salaam waxaa la siiyey nisfa aljamaal, maca dalika iftatana bihi cadadu min annisaa, naaga badanna way ku fitnoobeen. laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam uutiya aljamaala kullah, qurux oo dhan ayaa la siiyey, mana lagu fitnoobin. axadu saalixiina ayaa la su'aal la yidhi nabi yuusuf calayhi salaam shatra aljamaal ayaa la siiyey, waana lagu fitnoobay. naago badanaa ku fitnoobeen ilaa gacmahoodii ay jarjareen, laakiin nabigeena sala allahu calayhi wasalam jamaal oo dhan ayaa la siiyey, mana lagu fitnoobin. markaasuu yidhi لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مزج جماله بجلال، قد مزج جماله بجلال، ويو نبي قرح دي سوحا لغداهي ويني أيا لسعته. أصحابتي انت وي ماذا نبي اي فيرنا يان وجهيس عليه الصلاة والسلام شرف صبتناي عنده ذكم هين كيرين عليه الصلاة والسلام. حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حسان، وهو يصف طلحة الحبيب المصطفى إساقو تلماميه وحويري وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وحاليك كاوناكسن إلما أركن من أركي دون طبع، وحاليك كاقروح بدن ناقوه ما ندالي دونان، وحاد لم يتهيمت sidii uu doonayo loo abuuray, ceeb oo dhanna adigoo ka beri ah ayaa lagu abuuray sala allahu calayhi wasalam. maalin baa xasaan wuxuu yidhi radia allahu tacaala canh, waxaa noo soo yimid oo noo soo galay nabiga sala allahu calayhi wasalam. markaasaan u wada kacnay nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabiga mutawaadic buu ahaa, markaasuu ku yidhi asxaabtiisa iska fariisa. asxaabta way fariisteen imtithaalan liamrih, laakiin xasaan ma fariisan radia allahu tacaala canh. nabiga markuu xaggoodii uu soo gaaray calayhi salaatu wasalaam ayuu ku yidhi xasaan, yaa xasaanu maa manacaka an tajlisa xaysu amartukum. xasaanow maxaa kuu diiday inaad fariisatid markaan idiin amray, maxaad u fariisan weydi? isla markii gabay buu qaaday, wuxuu yidhi qiyaamii lilcaziizi calaya fardun wa tarku lfardi maa huwa mustaqiimu عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال فلا يقوم. فتبسم صلى الله عليه وسلم. نبي قبوض والعدي مركزه ليه ان حسان انان استاغو قفك كركي عز كله شرف كله واجب يقتهي، واجبنا لغما تجي كره وحان ليا قف فهمي عقل له قرح ذاني جمال كان اركاي ان استاغينين. ومنا عائشة رضي الله تعالى عنها ayaa waxay warinaysaa haweenada ka mid ah, waxay talanaysay dharkeedii qolkeedii ku jirtaa radia allahu tacaala canha wa ardaaha. faynuuskii ayaa dimay, cirbadiina bay ka dhacday. anoo wareersan oo cirbadii raadinaya ay tiri ayaa waxaa daaha leexiyey oo soo galay nabiga sala allahu calayhi wasalam. wejigiisa markuu qolka soo geliyeyba qolka dhinacyadiisa oo dhan ayaa wada iftiimay sala allahu calayhi wasalam. cirbadii ayaan soo qaatay ay tiri, markaasaa nabiga ku idhi maa adwa'a wajhaka yaa rasuula allah. rasuul ilaahow maxaa wejigaaga iftiin badiyey oo maxaa ku nuur badiyey yaa rasuula allah. markaasuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam nacam yaa caaisha alwaylu liman laa yaraanii yowma alqiyaamah. sax waaye caaishoy, waxaa halaag iyo waadinaareed u sugnaatay qofka qiyaamaha aani arki doonin. waman da aladii laa yaraaka yowma alqiyaamah, kan qiyaamaha aan ku arki doonin kee waaye rasuul ilaahow? alladii dukirtu cindahu falam yusalli calay.
كان أكتي سلعي حسي دنا أن يصلينين ليس عنده محبة، ليس عنده شوق، ليس عنده وجدان، دارين ملئ دارين لاو يا نبي مجعي سو مقلي عليه الصلاة والسلام مكسلنا صلى الله عليه وسلم نبي صلوات كي سمعتها هموم تادن إن لغو كافنا دنبغاغي إن لغو دافايو مشاكل كاغي دن إن لحالنا naag 8 jir oo hadda Masar ay ku nooshahay way xanuunsatay xanuunkeedina wax kale ma ahayn markaasay sheekh u yeertay sheekhi wiilkeedii ayaa u yimid naagtan cajuuzada waayeesha wiilkeedii ayaa sheekha u yimid markaasuu ku yiri hooyaday baa ku rabto wuu raacay markaasay tir sheekh maalmahan waa xanuunsanahay maxaa kugu dhacay see lagu haya xanuunkeyga wax kale ma ahay tiri هبينادا النبي ما أركن صلى الله عليه وسلم صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسولي صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى من رأك ولو كان مناما يا مصطفى سلامي عليك يا رسولي سلام الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسولنا محمد مقصودنا محمد يا مصطفى سلامي عليك يا رسولي سلام الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسولي مرادنا محمد مقصودنا محمد يا مصطفى سلامي عليك يا رسولي سلام الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول الله سلام الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول markaasuu sheekhi ku yiri macnaheedu wuxuu yahay miya haween walba nabiga aragtaa sallallahu alayhi wasallam markaasay tiri ha maalmahan waxaa la xanuunsanahay nabiga arki waayay alayhi salatu wasalam wa karaama ilaahi oo kugu karaameynay nabiga aragtidiisa alayhi salatu wasalam وهو الذي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان